warbaahinta Mareykanka ayaa maanta si weyn u hadal haysa qoraal ay Ilhaan Cumar soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagram-ka oo ay ku sheegtay in iyada iyo saygeeda cusub ee Tim ay ugu dambeyn isguursadeen kaasoo muddo badan ahaa nin lagu xaman jiray in uu xiriir hoose uu ka dhaxeeyo balse marar badan ayay arrintaasi Ilhaan Cumar beenisay. Waan guursaday, waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda, haddana waxaan ku nahay nolosha. Waa barako ayay Ilhaan Cumar ku qortay sawir ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagram-ka. Ilhaan iyo Tim ayaa dhowr jeer oo kala duwan muuqaallo iyo sawirro laga soo qaaday muujinayay xiriirka hoose ee ka dhaxeeya. Tim ayaa Ilhaan garab weyn ka siiyey in ay u soo baxdo doorashadii u suura gelisay in ay Ilhaan Cumar aado Washington, balse guushaasi kadib waxaa soo baxay warar xan iyo xigasho isugu jiray oo sheegaya in Ilhaan Cumar iyo Tim ay leeyihiin xiriir hoose oo aan ahayn midka dhanka siyaasadda, taasoo horseeday in ay ugu dambeyn uu burburo qoyskii Ilhaan oo ay kala tagaan saygeedii hore ee Axmed Xirsi ee u dhashay 3 caruur ah. Burburka qoyska kadib waxaa sii xogeystay tuhunkii iyo xantii xiriirka hoose ee ka dhaxeeyay Tim iyo Ilhaan. Fariintani ayaa cadeynaysa in xantii muddada la aaminsanaa ay run noqotay, balse su'aasha ugu weyn ee cid kasta isweydiinaysa ayaa ah guurka Ilhaan iyo Tim, qaabka ay isku mehersan karaan ama guurkooda u dhacay, maadaama Tim uusan ahayn qof muslim ah, Ilhaanna ay tahay gabar muslim ku abtirsata. War jiraaba cakaaro imaan doona waxayna sugnaaba waa jawaabta saxda ah ee culimaadudiinka ay ka yiraahdaan guurka ay Ilhaan bulshada u soo bandhigtay. Deeq Darajooyin, Universal TV, Minnesota.